buurdhuubo iyo luuq intiiba waa la bedelay laakiin Garbaharey lama taaban markaan xog wareystay aan see wax u dhacayna waxa la yiri hub buu haystaa inuu dagaalama laga baqaya oo haddii hub laga baqayo Cabdirashiid Janan ka hub badan manin Maraxaan oo gada jooga Cabdirashiid Janan ka hub badan baa jiray ma jiro Cabdirashiid Janan in weerar lagu qaado dawladda go'aansatay oo intaas boqol ciidan iyo tiknika haysta nin saddex qori haysta oo Garbaharey joogana waxa la yiri dawladdu way ka cabsatay lagama cabsanin maxaa Cabdullaahi Farmaajo yiri waa in adeerka ii daay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay hoggaan ka gudba qabyaaladda iyo qabiilka iyo jeclaysiga u gudba midnimo Soomaalinimo iyo wada jir inta maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay intaas ahayd intaynu ka filayna intaas ahayd inta aynu danaynayno waa intaas laakiin markii asagu daneeyo iyo Cabdullaahi Kolane markii Cabdullaahi Kolane iyo Farmaajo ay daneeyaan in ay aaminaan in Garbaharey cidi ay gada ay cid ka haysatay doolow in cid ka haysatay balaxaaw in cid ka haysatay baar dheer in cid ka haysatay laakiin marnaba aan laga haysan Garbaharey fiiri dagaal laguma qaadin Garbaharey dib looma geysanin ninkii xilka wareeji markii la yirina waxa laba qoro akaab haysta sidaas daraadii dawladdu waa ka cabsatay Cabdirashiid Janan oo 2,000 ciidan haysta oo tiknika haystana dawladdu shafka u garaacdo waan weeraraynaa baa leeyahay bal aqligaas baa la rabaa Soomaali in laga gado oo Maraxaan laga gado oo la yiraahdo maaragtay Farmaajo Maraxaanimo ku riix gurigaygan jooga waa shaqeynaya xilligan la joogo Facebook baan ku jira laakiin US Department of Transportation shaqaan ugu fadhiya oo shaqeynaya waxaanu u baahanahay waxa weeye cadaalad haddii maxamed Cabdullaahi Farmaajo cadaalad inoo keeno annagoo Maraxaan ayaa Soomaali ka gadayna ayaa Soomaali u geynayna waan hubaa waxaynu wadano oo nadiif ah oo saafi ah Soomaali naga diidi mayso Soomaali naga diidi mayso waa sunnada macnaha ilaahiya qofkii wanaag wada inaan wanaag laga diidin laakiin maxamed Cabdullaahi Farmaajo annagoo wadna oo Maraxaan uma geyn karno asagoo noo kala fadilaya Garbaharey iyo doolow asagoo noo kala fadilaya balad xaawo iyo Garbaharey asagoo noo kala fadilaya baar dheer iyo Garbaharey asagoo noo kala fadilaya buurluub iyo Garbaharey Maraxaan annagoo uma geyn karno Soomaali waxa kaliya maasiska kaliya aan u gudbin karno Maraxaan waxa weeye inaynu dhahno Farmaajo waa qabyaaladeyste waxaana cadeyn ku ah nin saddex qori haysta buu haystaa iimaan cadow sharmaake waa nin Maraxaan waa nin reer diini ah waa nin reer siyaada saddex qori buu haystaa dawladdu waxay tiri mar hadduu is adkeeyay faraha laga qaado laakiin kii balaxa waxa la wareej xog wareej hadii kar gorgor iyo waxa ku dilaysa iyo harab cad kii doolow waxa la yiri sidoo kale kii baar dheer sidoo kale riyaa ilaahay yaqaan islaama ummadda cadaalad bay u baahan tahay wadalkan cadaalad darra burburisay wadalkan cadaalad darra burburisay war cadaalad darra dalkan ma dhisi karto war cadaalad darra dalkan ma dhisi karto billahi alaykum dhalinyarada Soomaaliyeed yaan qabiilayda ku shukaansanay maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabiil ahaan cid iga xigtaay ma jirto hadduu cadaalad ka shaqeynayo hadduu midnimo ka shaqeynayo hadduu Soomaalinimo ka shaqeynayo hadduu Maraxaanimo ka shaqeynayo oo ay ka bilaabato midnimadu qofka ugu horeeya ee garab galaya noqonaya qofka ugu horeeya ee soo dhaweeya noqonaya qofka ugu horeeya ee ummadda Soomaaliyeed ka gadaan noqonaya laakiin haddii ay dhacdo inaan qabyaalad iyo qabiil iyo nin jeclaysi aan ka dareemo waa mas'uuliyad saaran ka muwaadin ahaan inaan ummadda Soomaaliyeed been u sheegin inaana dhihin maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin wadani ah inaana oran maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin geesi ah no maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu ummadda Soomaali u sheegay been buu ka sheegay Ethiopia nibcahay buu yiri waa jecel yahay Ethiopia qabyaalad waa nibcahay buu yiri gobolkii gadaal laga maanta ka arkaysa waxa kale uu yiri musuqmaasuq baan la dagaalamaya wixii ka dhacay marka airportkeedii oo xitaa qeyr naga xishoon waayay waa u jeeday next day waxa qaaday dad baa qaaday ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay
buurdhuubo iyo luuq intiiba waa la bedelay laakiin Garbaharey lama taaban markaan xog wareystay aanisee wax u dhaceen waxa la yiri hub buu haystaa inuu dagaalama laga baqaya oo haddii hub laga baqayo Cabdirashiid Janan ka hub badan manin Maraxaan oo gada jooga Cabdirashiid Janan ka hub badan baa jiray ma jiro Cabdirashiid Janan in weerar lagu qaado dawladda go'aansatay oo intaas boqol ciidan iyo tiknika haysta nin saddex qori haysta oo Garbaharey joogana waxa la yiri dawladdu way ka cabsatay lagama cabsanin maxaa Cabdullaahi Farmaajo yiri waa in adeerka ii daay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay hoggaan ka gudba qabyaaladda iyo qabiilka iyo jeclaysiga u gudba midnimo Soomaalinimo iyo wada jir inta maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay intaas ahay intaynu ka filaynay intaas ahay inta aynu danaynayno waa intaas laakiin se markii asagu daneeyo iyo Cabdullaahi Kolane markii Cabdullaahi Kolane iyo Farmaajo ay daneeyaan in ay aaminaan in Garbaharey cidi ay gada ay cid ka haysatay doolow in cid ka haysatay balaxaaw in cid ka haysatay baar dheer in cid ka haysatay laakiin se marnaba aan laga haysan Garbaharey fiiri dagaal laguma qaadin Garbaharey dib looma geysanin ninkii xilka wareeji markii la yirina waxa la laba qoro aakaab haysta sidaas daraadii dawladdu waa ka cabsatay Cabdirashiid Janan oo 2,000 ciidan haysta oo tiknika haystana dawladdu u shafka u garaacdo waan weeraraynaa baa liir bal aqligaas baa la rabaa Soomaali in laga gado oo Maraxaan laga gado oo la yiraahdo maaragtay Farmaajo Maraxaanimo ku riix gurigaygan jooga waa shaqeynaya xilligan la joogo Facebook baan ku jira laakiin US Department of Transportation shaqaan ugu fadhiya oo shaqeynaya waxaynu u baahanahay waxa weeye cadaalad haddii maxamed Cabdullaahi Farmaajo cadaalad inoo keeno annagoo Maraxaan ayaa Soomaali ka gadayna ayaa Soomaali u geynayna waan hubaa waxaynu wadano oo nadiif ah oo saafi ah Soomaali naga diidi mayso Soomaali naga diidi mayso waa sunnada macnaha ilaahiya qofkii wanaag wada inaan wanaag laga diidin laakiin se maxamed Cabdullaahi Farmaajo annagoo wadna oo Maraxaan uma geyn karno asagoo noo kala fadilaya Garbaharey iyo doolow asagoo noo kala fadilaya balad xaawo iyo Garbaharey asagoo noo kala fadilaya baar dheer iyo Garbaharey asagoo noo kala fadilaya buurdhuubo iyo Garbaharey Maraxaan annagoo uma geyn karno Soomaali waxa kaliya message kaliya aan u gudbin karno Maraxaan waxa weeye inaynu dhahno Farmaajo waa qabyaaladeyste waxaana cadeyn ku ah nin saddex qori haysta buu haysta iimaan cadow sharmaake waa nin Maraxaan waa nin reer diini ah waa nin reer siyaada saddex qori buu haysta dawladdu waxay tiri mar hadduu is adkeeyay faraha laga qaado laakiin si kii balaxa waxa la wareeji xog wareeji haddii Gargor iyo waxa ku dilaysa iyo harabcad kii doolow waxa la yiri sidoo kale kii baar dheer sidoo kale riyaa ilaahay yaqaan islaama ummadda cadaalad bay u baahan tahay wadalkan cadaalad darra burburisay wadalkan cadaalad darra burburisay war cadaalad darra dalkan ma dhisi karto war cadaalad darra dalkan ma dhisi karto billahi alaykum dhalinyarada Soomaaliyeed yaan qabiilayda ku shukaansanin maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabiil ahaan cid iga xigtahay ma jirto hadduu cadaalad ka shaqeynayo hadduu midnimo ka shaqeynayo hadduu Soomaalinimo ka shaqeynayo hadduu Maraxaanimo ka shaqeynayo oo ay ka bilaabato midnimadu qofka ugu horeeya ee garab galaya noqonaya qofka ugu horeeya ee soo dhaweeya noqonaya qofka ugu horeeya ee ummadda Soomaaliyeed ka gadaan noqonaya laakiin haddii ay dhacdo inaan qabyaalad iyo qabiil iyo nin jeclaysi aan ka dareemo waa mas'uuliyad saaran ka muwaadin ahaan inaan ummadda Soomaaliyeed been u sheegin inaan dhihin maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin wadani ah inaan oran maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin geesi ah no maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu ummadda Soomaaliyeed u sheegay been buu ka sheegay Ethiopia nibcahay buu yiri waa jecel yahay Ethiopia qabyaalad waa nibcahay buu yiri gobolkii gadaal laga baad maanta ka arkaysaa waxa kale uu yiri musuqmaasuq baan la dagaalamaya wixii ka dhacay marka airportkeedii oo xitaa qeyr naga xishoon waayay waa u jeedeen next day waxa qaaday dad baa qaaday ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay
buurdhuubo iyo luuq intiiba waa la bedelay laakiin Garbaharey lama taaban markaan xog wareystay aanisee wax u dhaceen waxa la yiri hub buu haystaa inuu dagaalama laga baqaya oo haddii hub laga baqayo Cabdirashiid Janan ka hub badan manin maraxaan oo gada jooga Cabdirashiid Janan ka hub badan baa jiray ma jiro Cabdirashiid Janan in weerar lagu qaado dawladda go'aansatay oo intaas boqol ciidan iyo tiknika haysta nin saddex qori haysta oo Garbaharey joogan waxa la yiri dawladdu way ka cabsatay lagama cabsanin maxaa Cabdullaahi Farmaajo yiri waa in adeerkay idaay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay hoggaan ka gudba qabyaaladda iyo qabiilka iyo nin jeclaysiga u gudba midnimo Soomaalinimo iyo wada jir inta maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay intaas ahay intaynu ka filayna intaas ahay inta aynu danaynayno waa intaas laakiin se markii asagu daneeyo iyo Cabdullaahi Kolane markii Cabdullaahi Kolane iyo Farmaajo ay daneeyaan in ay aaminaan in Garbaharey cidi ay cid ka haysatay doolow in cid ka haysatay balaxaaw in cid ka haysatay baardheer in cid ka haysatay laakiin se marnaba aan laga haysan Garbaharey fiiri dagaal laguma qaadin Garbaharey dib looma geysanin ninkii xilka wareeji markii la yirina waxa la laba qoro akaab haysta sidaas daraadii dawladdu waa ka cabsatay Cabdirashiid Janan oo 2,000 ciidan haysta oo tiknika haystana dawladdu shafka u garaacda waan weeraraynaa baa liir bal aqligaas baa la rabaa Soomaali in laga gado oo mareexaan laga gado oo la yiraahdo maaragtay Farmaajo mareexanimo ku riix gurigaygan jooga waa shaqeynaya xilligan la joogo Facebook baan ku jira laakiin US Department of Transportation shaqaan ugu fadhiya oo shaqeynaya waxaynu u baahanahay waxa weeye cadaalad haddii maxamed Cabdullaahi Farmaajo cadaalad inoo keeno annagoo mareexaana ayaa Soomaali ka gadayna ayaa Soomaali u geynayna waan hubaa waxaynu wadano oo nadiif ah oo saafi ah Soomaali naga diidi mayso Soomaali naga diidi mayso waa sunnada macnaha ilaahiya qofkii wanaag wada inaan wanaag laga diidin laakiin se maxamed Cabdullaahi Farmaajo annagoo wadna oo mareexaana uma geyn karno asagoo noo kala fadilaya Garbaharey iyo doolow asagoo noo kala fadilaya balad xaawo iyo Garbaharey asagoo noo kala fadilaya baardheer iyo Garbaharey asagoo noo kala fadilaya buurdhuubo iyo Garbaharey mareexaan annagoo uma geyn karno Soomaali waxa kaliya maasajka kaliya aan u gudbin karno mareexaan waxa weeye inaynu dhahno Farmaajo waa qabyaaladeyste waxaana cadeyn ku ah nin saddex qori haysta saddex qori buu haystaa iimaan cadow sharmaake waa nin mareexaana waa nin reer diini ah waa nin reer siyaada saddex qori buu haystaa dawladii waxay tiri mar hadduu is adkeeyay faraha laga qaado laakiin si kii balaxa waxa la wareeji xog wareeji haddii Gargorgor iyo waxa ku dilaysa iyo harabcad kii doolow waxa la yiri sidoo kale kii baardheer sidoo kale riyaa ilaahay yaqaan islaama ummadda cadaalad bay u baahan tahay wadalkan cadaalad darra burburisay wadalkan cadaalad darra burburisay war cadaalad darra dalkan ma dhisi karto war cadaalad darra dalkan ma dhisi karto billahi alaykum dhalinyarada Soomaaliyeed yaan qabiilayda ku shukaansanin maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabiil ahaan cid iga xigtaay ma jirto hadduu cadaalad ka shaqeynayo hadduu midnimo ka shaqeynayo hadduu Soomaalinimo ka shaqeynayo hadduu mareexanimo ka shaqeynayo oo ay ka bilaabato midnimadu qofka ugu horeeya ee garab galaya noqonaya qofka ugu horeeya ee soo dhaweeya noqonaya qofka ugu horeeya ee ummadda Soomaaliyeed ka gadaan noqonaya laakiin haddii ay dhacdo inaan qabyaalad iyo qabiil iyo nin jeclaysi aan ka dareemo waa mas'uuliyad saaran ka muwaadin ahaan inaan ummadda Soomaaliyeed been u sheegin inaan dhihin maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin wadani ah inaan oran maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin geesi ah no maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu ummadda Soomaaliyeed u sheegay been buu ka sheegay Ethiopia nibcahay buu yiri waa jecel yahay Ethiopia qabyaalad waa nibcahay buu yiri gobolkii gadaal laga baad maanta ka arkaysaa waxa kale uu yiri musuqmaasuq baan la dagaalamayaa wixii ka dhacay marka airportkeedii oo xitaa qeyr naga xishoon waayay waa u jeedeen next day waxa qaaday dad baa qaaday ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay